fariin ayaan u diri doonaa ninkeyga waxaan u sheegi doonaa aniga inaan galo islaamka haddii uu doono inuu ila islaamo waa khayr hadduusan dooninna waa inuu ifuraa eryadan waxaa ku dhawaaqay haweenaydan markay soo gashay islaamka kadib waa maxay sababta ku qasabtay inay soo gashay islaamka waa maxay qisada ay ku soo islaamtay waa maxay fariintii ay u dirtay ninkeeda intaas iyo in ka badan waxaynu ku ogaan doonaa muuqaalkan qisada haweenay Mareykan ah oo soo gashay islaamka nala soco ilaa iyo dhamaadkeeda walaalka ama walaasha ay daawanayso sheekada gabadhan iyo qaabka islaamka ay ku soo gashay waxay ahayd bilaawashadeeda ninkaasi muslimka ee Bakistaaniga ah sababtiisa maalin maalmaha kamid ah ayaa nin Bakistaani ah wuxuu soo aaday wasaaradda Mareykanka si uu doonayay la kulanka wasiirka wuxuu sugay muddo dheer waxaana imaaday haweeneydii Mareykanka ahayd waxayna ku tiri wali ma aadan galin miya wuxuuna ku dhahay qof ima fasaxin inaan galo waxayna u gashay wasiirkii waxayna ku tiri soo geli waxa laga yaabaa inuu noo wado macluumaadna anfacayo markuu la kulmay kadib ninkii muslimka ah wuxuu soo aaday haweeneydii Mareykanka ahayd wuxuuna siiyay nambarkiisa wuxuuna ku yiri aniga halkan waxaan la deganahay qoyskeyga haddii aad wax u baahato ila soo xiriir wuxuu yiri ninkan waxaan u maleynayay inaysan ila soo xiriiri doonin balse mar ay ila soo xiriirto waxayna igu tiri wax ma qabto wixii ka dambeeyo 3 saac wuxuu yiri waxaan ugu wacay aniga iyo xaaskeyga casho markaan keenna cashadii aynu fariisanay ilmaha waxay dhahayeen bismillaah allahumma barik lana fima arzaqtana ilaahu noo barakay waxaad nagu arsaaqday si la yaab leh ayaan u fiiriyay balse aniga wax ma aanan dhihin waana iska cunnay markay ilmihii ay dhameen cuntadii waxay dhaheen الحمد لله الذي أطعمنا هذا ورزقنا إياه بغير حول منا ولا قوة وحيتري محيدهوين wuxuu ku dhahay waxaynu leenahay rabbi oo nasiye nicmadan waa midka nagu arzuqay cuntadan غيركeenuna way gaajaysan yihiin waa midka noo diyaariyay hoygan غيركeenuna way hoyla yihiin xaqa oo noogu leeyahay waa inaan ku bilawnaa bisinkiisa aynu ku dhameynaa shukrintiisa si oo noogu ziyaadiyo fadligiisa waxay tiri waa maxay hadalkan madrasadee ayaad ka soo barateen wuxuu ku dhahay madrasada sayidkeeni Muhammad sallallahu alayhi wa sallam waxay tiri anigu waxaan maqlay inuu islaamka dhax ahaaday hadal aan saxiix ahayn oo daciif ah iyo wixii la mid ah wuxuu siiyay kutub islaamka ku saabsan si ay u fahanto wayna baxday halkaasi waxa ahaaday meesha uu ka bilowday hanuunkeeda kadib way la soo xiriirtay ninkan mar kale waxay tiri anigu waan aqriyay kutubkan balse waa uu kooban yahay ee ma ahan mid isku dhex jira anigu waxaan doonayaa mid aan koobneen oo isku dhex jira ninkii wuxuu dhahay waxaan ku dhahay si waqti waxaan soo aaday maktabooyinka waxaan soo iibiyay musxaf tarjuman qaar ka mid ah kutubta axaadiista iyo kutub aadaabta islaamka iyo akhlaaqdiisa waana siiyay ayada 2 isbuuc ay iga maqneed wayna ila soo xiriirtay waxayna igu tiri waan aqriyay kutubta oo dhan waad mahadsan tahay hada anigu waxaan gaaray go'aan inaan soo galo islaamka ee sidaan u sameeyaa wuxuu dhahay ninkan waxaan la xiriiray mid ka mid ah maktabaadka waxaan ku dhahay waxa agteeda ahaaday haweeney Mareykan ah waxayna doonaysaa inay soo islaamto wuxuu dhahay keen markay soo gashay ay fariisato waxay tiri assalaamu calaykum maamulaha maktabku wuxuu yiri wa calaykum assalaam waxay tiri waxaan doonayaa inaan ku weydiiyo qaar ka mid ah su'aalaha wuxuu ku dhahay soo dhawow waxay tiri waxaan doonayaa inaad ii sheegto islaamka wuxuu yiri an tashhadi an la ilaha illa allah wa anna muhammadar rasulullah wa tusalli as-salawati al-khams وتزكي وتصومي وتحجي وحيتري انت انا وكلي ميا بس وحيد ها وحيتري وحان اقري انتاس انك بدن وحان كدهي سمي انتان او كليا وحيتري ii sheeg wax walbo hadii kale waan baxaya markaan istaago ilaahay hortiisana waxaan u sheegi doonaa inaadan ibarin wuxuu ku baray wuxuu ku dhahay hagaag waan ku sheegi doonaa wax walba waxa laga maarmaan ah inaad xijaabto madaxaagi ilaa iloogahaagi waxay tiri shaqadeedo dhan waa niman iyo isdhaxgal mi banaanta arinkaasi markaan islaamo kadib wuxuu ku dhahay adiga waxaad doonaysaa inaad wax walba ogaato kuma banaano dhaxgalitaanka ragga rasuulkeeni subhana alayhi salatu wasalaam wuxuu yiri nin haweeney lama keli noqdo ilaa ay sheedan ayaa soo sadeexaynayo sidoo kalena Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu yiri waqarna fi buyutikun gurihiina ku ekaada waxay tiri haddaba waan iska dayn doonaa shaqadeeda waxay ugu tagtay islaamka dartiisa
haddaba aanu oyno habeenkeena kuwaasoo shaqada darteeda xijaabka iskaga dhigayo iyo mid ragga dhexgalayso aanan waxba u aabiyeeleynin kani xaraam miyaa mise waxay tiri ayadoo weydiinayso ma ii bannaan tahay ninkayga inuu ahaado kaafir wuxuu yidhi ma bannaano muslimad inuu guursado gaal haddaba waxaan u diri doonaa fariin waxaan u sheegayaa inaan islaamay insha allah wuxuu soo gali doonaa islaamka ama wuu ifuri doonaa haddaba fiiri walaalka i daawanayo ama walaasha i daawanayso waxay diinteeda darteeda ugu tegaysaa wax walbo waxay samaynaysaa waxaynan samaynaynin gabdhaha muslimaadka oo ku soo barbaaray diinta waxay ahayd fariinta ay ninkeeda u dirtay sida soo socoto ninkayga qaaliga ah aniga waxaan helay xaqiiqda diintan waa diinta islaamka aniga waxaan maray wadadan haddii aad doonayso inaad ila marto wadadan ilaa aan jannada ka gaarno haddii kale waan kaa cudur daaranayaa aniga qofna uma ogolaanayo inuu istaago wadadiisa soo ilaahay iga raali wuxuu yidhi maamulaha maktabka waxay u dirtay fariin waxay bilowday inay isweydiiso anigana horteeda aan fadhiyo sida qof waalan oo kale waqti badan kama soo wareeganin waxaa u soo laabatay fariintii ayadoo ku qoran tahay ashhadu an laa ilaaha ila allah wa ashhadu anna muhammadan rasuulullah fariintii ayay qaadatay wayna dhunkatay ayadoo ooynaysa kadibna waxay ku qabsatay xabadkeedii maamulihii wuxuu yidhi waxaan soo xasuustay hadalka ilaahay waqaaluu alxamdu lilaahi aladii hadaana lihada wamaa kunna linahtadiya lawlaa an hadaana allah laqad jaa'at rusulu rabbina bilxaq wanuuduu an tilkum aljanna uuristumuuha bima kuntum tacmaluun wuxuu yidhi way baxday wayna soo laabatay waxay tiri waan isdhiibay tani waa hantideyda waxaana u bixinayaa dar alle su ilaahay iga raali noqdo ayadoo waxay ahayd kuwa ilaahay ku dhahay wa min annaasi man yashri nafsahu ibtigaa'a mardaati illaah wallaahu ra'uufun bilcibaad wuxuu dhahay qaado adiga ayaa ugu xaqnimo badane waxay tiri adiga ma taqaanid jariimadeyda aniga kama seexdo ilaahay hadalkiisa waqaaluu ittakhada arraxmaanu walada لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا أنا جوان دنباوي وحن أهامته كلمدان هديه إلهي أفسح لها كون كان سوي عبرو سمد أيا كالتقي لهيد للك أيا دلدلاع لها بورها أيا نصوهبا لها قاد حولها أو بحي وحالقي يا وإلهي إنو إقرى لنقضو وحولها معمولها وأنكو قنع إنا قادوها انتذا عنكو بعيد الدعوة إلهي درتيسا وحو كيري معمولها انت سكدب وحان كاعصنا يا عصي وحالقي يا وما انت كدب إنا نكل من إنا kulan siiso gabdhaha muslimaadka ee luqadda ingiriiska yaqaano waxaan u daawacay ogeysiis waxaana ku qoray magaceedii hore waxay ku dhahday xaaskii maamulaha waxaan soo aruuriyay qaar ka mid ah gabdhaha muslimaadka waxaana soo galay qaar ka mid ah gabdhaha qaaqaawan waxayna fariisteen safka koowaad waxay dhahday xaaskii maamulaha wallaahi diintan ayaga iyo akhlaaqdooda ay ilaalinaysaa waxay doontay inay baxdo laakiin waan sabraa waana arki doonaa kama soo wareeganin ilbiriqsiyo waxaa degay codadkii waaba haweeney meelna aan ka muuqanin oo libiskeedu waasic yahay waxay iska dhigtay gacmo gashigii markay hubsatay inuusan qaacada ku jirin wax rag ah waxay feeday wejigeeda kadibna waxay iska dhigtay kutubka ayadoo fiirinayso gabdhaha qaaban eekmo adag oo kulul Allah سبحانه وتعالى وحيدي يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا كدب وحي مصحف كو قبستي غعنتيده ميدغتا كتاب كله انتنا وحي كو قبستي غعنتيده بيدخدا وحي نتري الحمد لله kadib waxay bilowday kalimadeeda ingiriisiga waxaad moodaa sida sawaariikhda oo kale waxay tiri ilaahay ayaa mahad iskale waxaan qaatay diinta islaamka asalkeeda waxayna kor u qaaday quraanka kariimka waxayna tiri ilaahay ayaa mahad iskale oo i waafajiyay kitaabkiisa kariimka ah ilaahay ayaa mahad iskale aniga uma qaadanin diintan kuwan oo kale waxayna farta ku fiiqday safkii ay fadhiyeen gabdhihii qaaqaawana waxay ku qaylisay gabdhihii hadduu dhulka la dilaaci lahaa una laqi lahaa waxay tiri ani ma aanan arkin noloshayda wax oo ilaahay abuuray oo na koriyay waxaan rajaynayaa inay noqoto qodax dhib badan ilaa idinka mooyee ilaahay wuxuu idin yaboohay janno oo balaceedu yahay balaca samada iyo dhulka waxaadna doonaysaan inaad ahaataan kuwa ka fogaaday kadib way soo gowgawaysay ayadoo dhahayso alxamdulilaahi alladii hadaana lihada wayna istaagtay ayadoo ilmada indhaheeda ka daadanayso subxaana allah waxay bartay muslimaadka waa sidee in la qabsado diinta waxay bartay waa sidee alla ka cabsiga iyo jaceylkiisa waxayna bartay ayadoonan dhammaystirinin islaamka laba maalmood subxaana allah alahaasoo ku nooleeya quluubta
في لمح البصر أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون ugu dambeyntii ilaahay waxaynu weydiisanaynaa inuu hanuuniyo gabdhaheena iyo gabdhaha muslimaadka iyo inuu hanuuniyo haweenkeena iyo haweenka muslimaadka iyo inuu nagu sugo diintiisa ilaa aan kala kulanno walaalka idaawanayo ama walaasha idaawanayso haddii aad nagu cusubtahay nagu soo biir oo subscribe taabo gambaleelkana furo si ay kuu soo gaaraan wax walba aan soo dhigno durbadiiba haddii aad horey nala joogtayna like saar oo la wadaag asxaabtaada si ay kula faa'iideystaan kuna soo qor fikirkaaga fiican qaybta hoose ee kommentiyada inta aan ku kulmi doono barnaamij caynkan oo kale waxa idinkaga tagaya sidaa iyo fi amaanillah wassalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh